رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، والسعادة لاح أهلا أهلا رمضان. su-aasha toddobaad ee ugu faafitaanka badan ama fahamka qaldan ee islaamka laga fahmayay toddobaad ee ay ku fakarayaan dadkaan muslimiinta ahayn waa muxuu islaamku ugu cadaadinayaa haweeneyda in uu madaxeeda daboolnaado? muxuu islaamku ugu cadaadinayaa haweeneyda inay xijaab xirnaato? inta aanan ka doodin ka hor asbaabaha xijaabka, bal aan taxliilino sidee bay ahayd xaaladda haweeneyda xadaaradihii hore. markaan akhrinayno taariikhda xadaaradii baabiliyiinta waxaan ogaanaynaa inay la dhaqanka haweenka aad u xumeeyeen. haddii ninku fal dil sameeyo, xaaskiisa ayaa la ciqaabi jiray. sidaas ayuu qaanuunku agtooda ahaa. haddaad akhrisaan xadaaradda Griiga oo ku caana inay tahay kuwa ugu waaweyn xadaaradaha, isla waqtigaa waxay aaminsanaayeen haweeney khayaali ah magaceeda lagu yeero Pandora, taasoo sabab u ahayd bay dhaheen sharta bulshada ka dhex dhacda. xadaaraddaasi Griiga ee aadka weyn, haweenku waxay u ahaayeen keliya shay lagu raaxaysto oo xumaantoo dhan lagu fuliyo. markaan akhrinayno taariikhda Roomaanka, xitaa xadaaradda Roomaaniga, haweeneyda sharafteeda hoos ayay si saa'id ugu dhigeen. daawanaanta iyo xumaantu waxay ahaayeen laba shay oo aad u faafsan. markaan akhrinayno taariikhda xadaaradii Masaarida, waxaa laga soo qaadi jiray shar, waxaana loogu yeeri jiray inay tahay aaladii shaydaanka. markaan akhrinayno taariikhda xadaaradii Carabta, intuusan soo degin qur-aanka ka hor, Carabtu waxay ahaayeen badankood kuwa aasa gabdhahooda iyagoo nool markay dhashaan kadib. ilaah baa mahad iskale oo mar kale mahad iskale. markuu qur-aanku soo dega kadib, dhaqamadaasi xunxun way joogsadeen, balse meelo kale ayay ka jireen oo caalamka ka mid ah. islaamka, allah mahad iskale, darajada haweeneyda kor ayuu u qaaday. Muxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa sababkii ugu weynaa ee sababay in haweeneyda xuquuqdeeda hesho. kadib markuu islaamku siiyay haweeneyda xuquuqdeeda, wuxuu inoo cadeeyay wadooyinka ay suurtagal tahay inay haweeneydu ku ilaashanaato. xijaabka haweeneyda ayaa lagu waajibiyay si ay ugu baaqi ahaato xaaladan ay xuquuqdeedu ilaashan tahay oo aysan u noqonin waqtiyadii hore ee la soo dhaafay. caado ahaan dadku waxay ka hadlayaan xijaabka haweeneyda, balse Allah subxaanahu wa ta'ala quraanka kow wuxuu uga hadlay xijaabka ninka, kadibna xijaabka haweeneyda. waxaa lagu sheegay quraanka suuratu nuur suurada 24 aayadda 30. waxaad ku dhahdaa nabi maxamed oo muuminiinta ha laabaan aragyadooda hana xifdiyaan farjiyadooda. marka ninku eegayo haweeneyda, haddii maskaxdiisa fikrad xun ku soo dhacdo oo aan xishood lahayn, waxaa waajib inuu araggiisa laabo. arrintaas waa waxa quraanku sheegayo. mararka ka mid ah waxaa jira nin muslima wuxuu eegayay haweeney waqti dheer. waxaan ku iri, walaal maxaad arrintan u sameynaysaa? waa xaaraan, islaamku ma ogola. wuxuu ii sheegay in rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sheegay in fiirinta koobaad la isku cafiyay, balse midda labaad ay xaaraan tahay. wuxuuna yiri, anigu maba dhameysanba fiirinteedii koobaad. rasuulku arrintaas wuxuu la jeeday waa markuu leeyahay fiirinta koobaad waa la isku cafiyay laakiin midda labaad waa xaaraan. wuxuu la jeeday markaad fiirido haweeneyda adigoon u qasdin, mar labaad ha fiirinin. taa macnaheedu ma aha in adiga lagu fasaxay inaad iska fiiriso haweeneyda muddo dhan 10 daqiiqo kadibna aad dhahdo aniga fiirinteedii koowaad weli ma dhameysan. aayadda labaad ee xigta suuratu nuur suurada 24 aayadda 31 waxaad ku dhahdaa haweenka muuminiinta ah ee xaq rumeeyay ha laaban indhahooda. halkan si asaasiya waxaa jirta 6 halbeeg oo xijaabku iska leeyahay laguna sheegay quraanka iyo xadiidka. waa waxa quseeya xirashada xijaabka. kan ugu horeeyo waa dhirirka. marka loo fiirsho ragga, dhirirku waa laga soo bilaabo xudunta ilaa jilibka, balse marka loo fiirsho haweenka, jirkeedo idil waa waajib inay daboosho. qaybta kaliya ee la ogol yahay inay banaanaadaan waa wajiga iyo labada gacmood. 5 halbeeg ee kale hartay waxay ka dhaxaysaa ninka iyo haweeneyda labadaba. tan labaad waa dharkay xiranayaan waa waajib inay ahaadaan kuwa waasac. waajib waxa inaysan noqonin kuwa ciriiri ah oo jirka tilmaamaya. tan saddexaad waxa waajib dharku inuusan ahayn mid jirka ku dhagan oo marka xigtana ay suurtagal tahay in qofka jirkiisa laga dhex arko. kan afaraad waxa waajib dharku inuusan ahayn mid soo jiidasho leh oo marka dadka soo jiidanaya. kan shanaad waxa waajib dharka haweeneydu inuusan shaabihin dharka ragga. kan lixaad waxa waajib in dharkeedu uusan shabihin dharka gaalada. halbeegyadaani si asaasiya waa halbeegyada 6 ah ee xijaabka. waa waxa quseeya dhar xirashada,
laakiinse uma taagna xijaabkii kaamilka ahay oo idil. xijaabka dhammaystirani ee jirka lagu asturayo sidoo kale wuxuu noqonayaa dhaqamadaada, ficilada aad samaynayso, akhlaaqdaada, sidoo kale niyooyinka qofka. marka laga soo tago xijaabka dharka ah waxaa la helayaa xijaabka labada indhood, xijaabka qalbiga, xijaabka caqliga, xijaabka fikirada. sidoo kale xijaabku wuxuu quseeyaa qaabka aad u hadlayso, qaabka aad u soconayso, qaabka dadka ula dhaqmaydo. midkaasi waa xijaabka dhammaystiran. alla wuxuu quraanka ku leeyahay suuratul ahsaab suurada 33 aayada 9 nabiyow ku dheh haweenkaaga iyo gabdhahaada iyo haweenka mu'miniinta ku dada dushiina xijaabka, ku dada dushiina jilbaabka. taas ayaa ugu dhow in la idin aqoonsado oo aan la idin dhibin. quraanku wuxuu leeyahay xijaabku haweeneyda wuxuu ka dhigay mid macruuf oo la yaqaano, kaasoo ka ilaalinaya inay u banbaxdo in la ciriiriyo. waxaan jeclahay inaan su'aal idin weydiiyo. haddaan ka soo qaadno inay jiraan laba gabdhood oo walaalo ah oo haddana mataano ah, aadna u quruxsan, haddana quruxda ka siman, oo soconaya wadada weyn ee Dubai oo kaligood soconaya marshabiyeedka. mid ka mid ah labadooda waxay xiran tahay xijaabka islaamiga ah iyadoo jirkeedu idilna uu daboolan yahay marka laga reebo wajiga iyo labada calaacalood. gabadha kale ee mataanta la ahna waxay xiran tahay dharka reer galbeedka, waa maro yar oo cabaayadaho gaaban ama surwaal yar oo gaaban. labadooduna waxay soconayaan wadada weyn ee magaalada Dubai, weliba marshabiyeedka labadooda oo kaliya. wadada dhinaceeda kalena waxaa jooga nin qaab daran oo raba gabdhahaasi inuu faduuliyo, wuxuuna rabaa midood inuu ciriiriyo oo dhibaateeyo. aniga waxaan idin weydiinayaa su'aal, gabadhee buu ciriirinayaa? ma wuxuu ciriirinayaa oo fowdeenayaa gabadha xiran xijaabka islaamiga, mise wuxuu faduulin doonaa oo dhibaateyn doonaa gabadha xiran xijaabka reer galbeedka? gabadhee buu ciriirin doonaa? gabadhee run ahaantii dabeecad ahaan wuxuu dooran doonaa gabadha xiran xijaabka reer galbeedka, waa cabaayada gaaban ama surwaalka gaaban. hadday ayadu dadka u yeeratay, dadkuna way u jawaabayaan. si dhaba quraanku wuxuu u sheegayaa in xijaabka gabadha lagu waajibiyay si uu uga ilaaliyo in la faduuliyo. inta kadib haddii qof uu istaago kufsashada gabar, islaamka iyo shariicada islaamku waxay ku waajibinayaan cuquubada dhimashada. dad badan oo muslimiin ah waxay dhihi doonaan ciqaabta dhimashada oo maqarniga 12aad. islaamku waa diin isdhaxyaac, waa shariico aan naxariis lahayn. balse markaan weydiiyo su'aashan soo socota, aniga su'aashan waxaan weydiiyay kumanaan qof oo aan muslimiin ahayn. waxaan ku iri ka soo qaada arrintaas inuu baxaaraantinimeeyo Allah. haddii qof uu kufsado hooyada ama walaasha, adigana aad ka mid ahaan lahayd dadka maxkamadaha joogay waxa kuma, oo qofkii kufsada hooyada hortaada la soo taago, maxay tahay ciqaabka aad ku waajibin lahayd korkiisa? rumaysta dhammaantood waxay dhaheen 100% waxaan ku ciqaabi lahayn dhimasho. qaarkoodna waxay dhaheen waan cadaabi lahayn ilaa ay ka dhintaan. haddii qof uu kufsado hooyada ama xaaskaaga ama walaasha, waxaad ku xukumi lahayd dhimasho. haddii qof uu haddana kufsalahay hooyo ama walaal qof kale, waxaad ku sheegaysaa ciqaabta dhimashada inay tahay ciqaab aad u xun oo ay shariicada islaamku fulisay. waa maxay laba wajilinimadaas? maxaa dhacay? ma ogtihiin Mareykanka USA waa dawladda ugu badan ee maanta caalamka uga horumarsan? ma ogtahay inay tahay dawlad dhexdooda ka dhacaan tirada ugu badan ee kufsiga caalamka? wadanka ugu badan ee uu kufsi ka dhaco caalamka waa Mareykanka. tirakoobka ay soo saartay FBI sanadkii 1990 maalin kasta waxaa dhacay dhaheen 1756 xaalad oo kufsi ah. nisbada tirakoobyadii ay soo saartay wasaaradda cadaaladda sanadkii 1996 waxay sheegtay maalin kasta inay dhacaan 2713 xaalad oo 1990 tiradu waxay ahayd 1796 1996 haddana tiradu waxay noqotay 2713. waxaa laga yaabaa dadka Mareykanka dhiirashadooda ayaa badatay, sana gudahood ayay noqdeen dad aad u dheer. haddii aad xisaabidaan 32 ilbiriqsi oo kasta Mareykanka gudihiisa waxaa ka dhaca kufsi. sidaad ogtihiinba halkan annaga hadda waxaan joognaa muddo 1 saac iyo bar ah. horaanba waxaa dhacay wax ku dhow 150 xaalad oo kufsi Mareykanka gudihiisa intaan halkan joognay. aniga waxaan idin weydiinayaa su'aal, haddii la tadbiiqin lahaa shariicada islaamka oo ninkii haweenay eega lagu waajibin lahaa inuu aragiisa laabo, haweenaydana lagu waajibayo inay xirato dhar asturad iyo xushmad ku dheehan tahay, jirkeedu idilna uu daboolnaado laga reebo wajiga iyo labada calaacalood, oo markaa kadibna shaqsi kasta oo kufsada haweenay lagu ciqaabi lahay dhimasho. aniga su'aal ayaan idin weydiinayaa, nisbada kufsiga ee ka dhacda Mareykanka ma kor bay u kici lahayd, ma meesheeday joogi lahayd, mase hoosay u dhici lahayd? hoos bay u dhici lahayd. waa qaanuun camali ah. qofkii tabaqa shariicada islaamka natiijada wuu heli doonaa. waa midaas sababta dawladda ugu yar ee caalamka maanta kufsi uu ka dhaco waa dawladda Sacuudi Carabiya. qofkii shariicada islaamka tabaqa natiijada wuu heli doonaa. bulshooyinka reer galbeedka waxay sheegtaan inay kor u qaadayaan sharafta haweeneyda markay ka sheekeynayaan xorriyadda haweeneyda.
waxaasi waa lagu qanciyaa oo kaliya si looga faa'iideysto jirkeeda ruuxdeeda loo fasahaadiyo sharafteedana hoos loogu rido bulshooyinka reer galbeedka waxay sheeganayaan inay kor u qaadayaan sharafta haweenka xaqiiqatanna hoos bay u dhigayaan sharafteeda waxayna ka yeelayaan mid saaxiib la ah oo ay jecel yihiin waxayna ka dhigeen aalad ku jirta kuwa raadiya raaxaysiga oo weliba ku caanbaxay xumaanta waxayna ku hoos qarsoon tahay gadaasha shaashad lagu midabeeyey fanka iyo dhaqanka magaca fanka iyo dhaqanka reer galbeedku waxay ku iibiyaan gabdhahooda waxay kale ku iibiyaan hooyooyinkooda sidaad ogtihiin boo arrimaha aadka iskaga faafay ogeysiisyada badankood waxaad ku arkaysaa haweeney waxaad ku arkaysaa ogeysiisyada mootooyinka meeqa haweenka ka mid ah ayaa kaxeeya mootooyinka sida oo ay tahana haweeneyda waxaad ku dhex arkaysaa meelaha ogeysiisyada mootooyinka waxaad ku arkaysaa ogeysiisyada gaariyada waxaa la ii sheegay ogeysiis aad u sarreeya oo ku saabsanaa shirkadda BMW ma garanaysaan shirkadda BMW waa shirkad sameeyda gaariyada dhalinyaradu aad ay u jecel yihiin maxaa yeelay gaariyada ee soo saarto aad ay u wanaagsan yihiin speedkooduna aad ay u wacan yahay midkood wuxuu ii sheegay mid ka mid ah ogeysiisyada BMW inaad arkayso haweeney hortaagan gaariga hortiisa waxayna xirantahay dharka bikaniga loo yaqaano waa dharka dabaasha ogeysiiskana waxaa ku qoran tijaabi hogaaminteeda hadda kuma ma gaariga mase gabadha haddaba magaca xorriyadda haweeneyda waxay ku iibsanayaan gabdhahooda waxay ku iibsanayaan hooyooyinkooda balse annaga waan jecelnahay gabdhaheena waan jecelnahay hooyooyinkeena waan jecelnahay xaasaskeena haddii xijaabku haweeneyda ku yahay cadaadis balse uu ilaalinayo annagu waan jecelnahay cadaadiskaas waan jecelnahay cadaadiskaas waan jecelnahay ilaalintaas haddii xorriyaddiinu ay tahay magacan xorriyadda haweeneyda taasoo ka dhigan in la iibsado jirka gabadha la iibsado nafteeda annagu waxaan aad ugu faraxsannahay diinteenna islaamku wuxuu ku waajibiyey xijaabka haweeneyda si uu u ilaaliyo sharafteedana kor maantana waxaan arkaynaa waxyaabaha ka dhexdhacaya bulshooyinka reer galbeedka inay yihiin xadaarooyinka hore waxyaabo dhici jiray sida Greega Roomaanka magaca xorriyad u raadinta haweeneyda sida fanka xadaaradda moodalka sida faashiyonka waa dhammaan waxaad arkaysaan oo maxay sameynayaan waxay u noqonayaan casriyadii hore والسعادة هنا أهلا أهلا رمضان والقمر أفراح أهلا